Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Xalqadeennan maanta waxaynu kusoo qaadan doonaa sida Facebook looga bedelo muuqaalka oo aad ugu bedesho muuqaalo aad u qurux badan oo uu ka mid yahay muuqaalkan horteeda yaalla ee kaaga muuqda. Dabcan waa muuqaal aad u qurux badan, laakiinse marka ugu horreysa markaad rabto muuqaalka Facebook inaad ka bedesho laba siyood baad uga bedeli kartaa adigoo isticmaalaya extension-kana dabcan waa la wada garanayaa, iyo sidoo kale adoo isticmaalaya extension-kaas oo ku daraysa Google Chrome-ka ama Firefox-kaaga. iyo sidoo kale habka labaad aad kaga bedeli kartaa waa inaad software isticmaashaa, software computer-kaaga aad ku shubayso. Marka dabcan software-radaasi uma fiicna computer-ka. Markastay software iyo extension noqoto, extension-ka fiican oo ka fudud oo Google Chrome-ku la shaqeynaya. Laakiin kani maskaxdii computer-kana wuxuu ka haysanayaa space buu ka haysanayaa, sidoo kalena umana fiicna xagga safety-ga computer-kaaga. Marka extension-ka markasta ka wanaagsan oo kugu dhiirigelinayaa. Haddii aad rabto software lafteeda waynu samayn doonaa xalqadaha dambe. Marka Facebook extension-kan awood wuxuu leeyahay kaliya Facebook oo kaliya maaha, website kasta muuqaalkiisa waad bedeli kartaa. Waana awoodna waxaad u leedahay inaad muuqaalkaagii hore kusoo noqoto haddii aanad u baahnayn. Marka tusaale ahaan website-yada kale waxaa ka mid ah Google oo kale, www.google.com. markaad timaado muuqaalkiisu isaguna qaabkan u soo baxaya. Waa muuqaal aynu soo gelinay inagoo extension-kan isticmaalayno oo kaliya. Dabcan waa hab aad iyo aad u fudud. Marka waxaynu bilaabeynaa sharaxa sida loogu soo daro extension-ka Google Chrome-ka iyo sida looga bedelayo Facebook-ka muuqaalka, iyo sidoo kale website-yada kale qaar ka mid ah sida Google-ka sida looga bedelayo xayeysiiskan yar ka bacdi. kusoo dhawow mar labaad. Marka ugu horreysa waxaad booqanaysaa website-kan la yiraahdo userstylist.org. organization-kana soo booqanaysaa. Ha ku degdegin inaad ku dhufato Facebook themes ama aad ku dhufato Tampere themes haddii aan dhawaaqa saxno, ama Google themes ama Firefox themes. Ha ku degdegin kuwa inaad tagto, sababtoo halkan wuxuu ku leeyahay habka ugu fudud ee aad stylist-kan ku isticmaali kartaa waa inaad ku darto Firefox-ka iyo inaad ku darto Chrome-ka. Marka inagu Chrome baynu isticmaalnaa. Chrome sababta aan ku dooranin u dooran weynay Firefox-na waxa weeyaan Firefox-ku awood marka ugu horreysa uma laha inuu halkan soo dhigo extension-ka aad kusoo darto. Dabcan halkan waxaad aragtaa extension-na yaalla Google Chrome-ka. Marka Google Chrome awood wuxuu leeyahay extension-da noocan oo kale ah ee lagu shaqeysanayo inuu halkan kaaga soo muuqdo ayuu awood u leeyahay. Balse Firefox-ku awood ma laha inuu halkan ka soo muuqdo extension-nadan. Marka Chrome baynu isticmaalnaa. Habka labaad aynu ku dooranay Chrome waxa weeyaan Firefox iyo Chrome marka la isku barbar dhigo dhinaca speed-ka, Chrome ayaa ka dheereeya. Marka waxaad ku dhufanaysaa stylish for Chrome. Stylish Chrome baad ku dhufanaysaa si uu inoo geeyo bartii aynu extension-ka kaga soo daraynay. Marka uu inoo keeno extension-ka stylish, halkan waxaan leenahay add to Chrome baynu ku dhufanaa. Ku dar Chrome-ka. waxay noo soo baxaya daaqadan yar ee xagga sare kaaga soo baxaysa. Add extension baad leedahay. Waxaad arki doontaa in extension-kaagii lagu download garaynayo oo isla markaa lagu darayo Google Chrome-ka, iyadoo halkan hoose ay kaaga soo bixi doonto adding to Chrome baa lagu daraya. Marka haddaba ay dhammaato ee lagu daro Chrome-ka, extension-kii immediately halkan ayuu ka soo baxaya. Waana waxaynu ku dooranay Google Chrome-ka. Qodobada aynu ku dooranay mid ka mid ah. Bartan ayuu inooga soo baxaya extension-kii. Marka uu extension-kii kuu soo baxo, waxaad tegaysaa website-kaagii Facebook aad soo furanaysaa. Website-kii Facebook-gaaga waxaad aragtaa dabcan iminka inuu muuqaalkiisu yahay kii rasmiga ah ee ka kooban caddaan iyo buluug gebigiisaba. Marka caddaan iyo buluug ayuu ka kooban yahay iminka Facebook-gaagii. Google-kii haddaad aragtana waa caddaan, waa page-ka cad ayuu ka kooban yahay. Labadaba muuqaalka ayaynu ka bedelaynaa. waxa kale ayaa ka bedeli doonaa. Marka koowaad waxaad tegaysaa website-ka aad rabto inaad muuqaalka ka bedesho ayaad marka hore tegaysaa. Facebook baynu rabnaa. Facebook markaan tagno ayaad halkan ku dhufanaysaa calaamadda. Dabcan haddii adoo Google jooga aad tira Facebook aan ka bedelaya, Google-kunba muuqaalka laga bedelaya laakiin Facebook laga bedeli maayo. Marka aad website-kii tagtaa horta Facebook-in tagnaa, kadib waxaad calaamadan stylish baad ku dhufanaysaa. Waxaad ku dhufanaysaa halkay ku qoran tahay find more stylish for this site. Find more stylish for this site. U baadh muuqaalo badan. Marka muuqaalka Facebook aynu markii dhow sharaxa kusoo arkaynay qaybtiisii hore waa kan ugu sarreeya. Marka aad ku dhufato waxaad leedahay install with stylish.
extension kan stylish la yiraahdo ku dar oo ku install garee kadibna okay baad leedahay. Marka la install gareeyo waxay isku bedeli doonaa calaamadan buluuga ah isagoo markii hore akhtar ahaa. Marka taa micnaheedu waxa weeyaan waa lagu daray Facebook halkii stylishkii. Haddii Facebookii ku noqonay refresh gareyno page-ka waxaad arki doontaa in muuqaalkii lagu celinayo aynu usoo qaadnay muuqaalkii. Waa kan muuqaalkii Facebooka ayaa lagu bedelaya. Dabcan waa muuqaal aad iyo aad u qurux badan kan Facebook ee nimanka soo dhignay oo muuqaalka aad aragto. Haddii aanad jeclaysan muuqaal kale ayaad soo dooran kartaa markasta. Haddaba haddaad rabto muuqaal kale inaad soo doorato waa bartii la mid ah halkii baad kusoo dhufanaysaa calaamadii stylish kadibna waxaad leedahay find more stylish for this site. Haddaba ma ka noqon karaa muuqaalkan oo ma ku celin karaa Facebookayga muuqaalkiisii hore asalka ah? Haa waad ku celin kartaa welibana si qurux badan oo fudud ayaad uga celinaysaa. Waxaad tegaysaa bartii stylish halkan waxaad arki doontaa diimkan aynu ku shubnay Facebooka. Diimkan ka muuqda iminka halkan inooga muuqda akhtarka ah calaamad baa saaran. Calaamadaas baad ka qaadaysaa. Waxaad arki doontaa in lagu celiyay sidiisii hore. Mar labaad haddaad saarto waxaa lagu soo celinayaa muuqaalkii aad doonaysay. Sidaas aad muuqaallo fara badan oo kala duwan oo kolba ku cajabiyo dookhaaga ah aad u soo dooranaysaa. Haddaba haddii aad rabto gebi ahaanba muuqaalkan inaad ka saarto oo delete og inaad qariso oo kaliya maaha inaad gebi ahaanba ka saarto waxaad ku dhufanaysaa halkaa delete ay ku qorantay. Delete ayaad ku dhufanaysaa. Bartaa delete ay ku qorantay. Haddii kalena calaamadaada saxa ayaad marna saaraysaa marna ka qaadaysaa. Extension kan hadda sidii caadi ahayd ayaad markasta halkan tegaysaa more tools extensions baad tegaysaa kadib extension kan stylish haddii aanad u baahnayn waad ka saaraysaa waad soo delete garaynaysaa. Delete baad ku dhufanaysaa. Aan ku tuso qaabkaad isagana usoo delete garaynayso more tools kadib waxaad leedahay extensions markuu kugu soo baxo page-ka extensionska waxaad tegaysaa extensionka imika ku dartay stylish kadib halka calaamada delete ayaad ku dhufanaysaa si aad uga saarto gebi ahaanba Google Chrome-ka wax haddii aanad u baahnayn. Haddaba Google-ka aynu isagana tagno si aynu uga bedelno muuqaalka. Google-ka ayaad ku dhufanaysaa calaamadii stylishka ayaad tegaysaa waa sidii Facebook oo kale kadib waxaad oranaysaa find more stylish for this site. Style fara badan u dayday website-kan Google-kana. Marka isagana halkan ayaad ka baari doontaa style-ka ku cajabiyo aynu doorano matalan style-kii aynu markii dhaweyd sharaxa ku arkaynay waa kaas waa sharaxa qaybtiisa hore style-kan ku arkaynay kadib sidii caadiga ahayd install with stylishka ku dar baan leenahay kadibna okay baan leenahay. Bluegu markuu isku bedelo waa lagu daray micnaheedu weeyaan. Markaad Google-kaagii tagto aad refresh garayso dib u refresh garayso waxaad arki doontaa muuqaalkaagii in lagu daray Google-ka. Sorry maaha muuqaalkeenii aynu kusoo bilownay sharaxa laakiin waa muuqaal kale laakiin waa isku mid qaabkaas baad usoo dooranaysaa isagana Google-ka. Sidoo kale YouTube-ka haddii aad rabto waad ku dari kartaa adigoo xagga dambe isagana ku dhufan furaya oo halkan www.youtube.com ku dhufanaya kadibna halkan kasoo dooranaya find more stylish for this site-kan oo ark u baadh isagana. Ugu dambeyn waxaynu soo gaarnay gabagabadii mawduuceenan. Ugu dambeynna ha ilaawin inaad subscribe garayso kanaalkeena Cabdishakuur si aad ii dhiirigeliso isla markaana aad ku biirto bloggeena aad soo booqato si aad isagana ula socoto xalqadaha cusub iyo barnaamijyada cusub ee lagu sharxayo isla markaana aad uga daba tagto xalqadii hore ku dhaafay adigoo kaliya ka dooranaya linkiyada halkan kaaga muuqda main menu-ga kaaga muuqda isla markaana waxaan kugu baaqayaa inaad like garayso page-keena Facebook aan ku leenahay www.facebook.com/muxtarif adigoo kusoo biiraya si aad u hesho adigana maqaalada ugu dambeeya iyo duruusta sababtoo kaliya ma soo gudbino video waxaa jira maqaallo kusoo baxaya maalin kasta Facebook soo gelaya sidaa darteed si aad uga qayb qaadato waa inaad like garaysaa si ay bartaada kugu yimaadaan intaynu ku kulmi doono darsi kale oo kan la mid ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.